السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواada asxaabay muuqaal cusub ma u malaynaysaa inaad wax kasta si sax ah u garanayso xaqiiqdii maalinta ka dambaysa waxa uu cilmigu sahaminaya wadaha ka qaadaya waxyaabo cusub ka waran shayga aad muddada dheer ka aaminsaneed xaqiiqada haddii mar kaliya lagu dhaho waa been waxba kama jiraan ah nala sii soco oo sii daawo muuqaalka si aad u ogaatid qaar ka mid ah beenihii ugu waaweynaa ee basharku rumaystaan gidaarka weyn ee Shiinaha gidaarka weyn ee Shiinuhu waa mid ka mid ah qaab dhismeedyada ugu waaweyn ee muujiya handasadii hore halka dhanka kalena lagu tiriyo goobaha farakutiriska taariikhiga ah ee malaayiinta dadka dalxiis ahaan u aadan sanadkii waxaanay dadka qaar ka aaminsan yihiin gidaarkan weyn ee Shiinaha ku yaala in qaab dhismeedkiisa laga arki karo hawada sare halka wakaaladda ku xeelka dheer hawada sare ee NASA ay laashay arrinka beenta ah iyadoo leh waxa si dhib yar looga arki karaa saddexda orbit ee dhulku haysto kan ugu soo hooseeya iyadoo ay laga maarmaan tahay xilliga la eegayo in jawigu fiicnaado sanadkii 1740 waxay dad dhowr ah ku andacoodeen in derbigan laga arki karo dusha sare ee dayaxa inkastoo sidii tin oo kale looga arkayay haddana nasiib xumo derbigii wuu sii yaraaday kadib markii dhagxaantiisii loo isticmaalay in lagu dhisto guryo iyo wadooyin halka kuwa kale oo qaali ahaana la xaday sida ku xusan warbixin ay soo saartay 2012 wasaaradda taariikhda iyo dhaqanka Shiinuhu waxay cadeeyeen in la waayay qayb ka mid ah derbigan waxaanay ku qiyaaseen inta la waayay 22% ka mid ah iyadoo ay sidaa tahay oo aan aad meel fogna looga arki karin haddana waxa gidaarkan weyn ee Shiinaha ku yaala sii burburiyay roobka mahiigaanka ah dabaylaha iyo xaaladaha cimilada ee xun mid ka mid ah qisaska caanka ah haddana khiyaaliga ah ee caalamku rumaystaan waxaa ka mid ah qisada bahal badeedka Ness waxa lagu sheegay bahalkan inuu yahay makhluuq weyn oo la arag badanka oo ku noolaa jasiiradda Loch Ness ee ku taalla Scotland tan iyo qarnigii 6 ee miilaadiga waxaana la soo wariyay ugu horreyntii inay dad dhowr ah xaqiijiyeen inay arkeen bahalkan isagoo dul dabaalanaya biyaha badda intaa kadib 1934 waxa la soo qaaday sawiradii ugu horreysay laga qaaday bahalkan Ness iyadoo ay ahayd meelaha sawirada laga qaaday madaxa iyo luqunta sawiradana waxa xaqiijiyay inuu gacantiisa kaga soo qaaday Dr. Robert Coleman Wilson isagoo sheegay inuu jeedkiisu ahaa marka hore inuu bilicda badda ka qaato sawiro ilaa uu bahalkan si kadiisa u arkay kadibna uu ka qaaday 4 sawir ee ilaa imika adduunka caanka ka ah iyadoo ay sidaa tahay oo la aaminsan yahay in makhluuqani jiro ayaa haddana 1994 waxay sheegeen khubaro dabagal ku sameeyay qisadan in wixii qaarka sare sawiradiisa lahay uu kaliya ahaa oo gujis Bill Downman 5 February 1912 waxa uu helay Sir Arthur Smith Woodward warqad uu ka tagay Charles Dawson isla markaa uu warqadda helay Woodward waxa uu ka shaqeynayay maamulana ka ahaa madaxafka taariikhda Ingiriiska waxaana ku qornayd warqadda inuu Dawson helay qolfoof bilaadan kadib waxay iska kaashadeen saynisyahanadii xilligaasi sidii ay faahfaahin dheeraad ah uga heli lahaayeen qolfoofka la sheegay inuu yahay qolfoof bilaadan daraasada kadibna waxay sheegeen inay heleen qaybo kale oo qolfoofka ka mid ah 12 bishii November isla sanadkii 1912 waxa uu Sir Woodward isu geeyay qolfoofihii waxaana daraasadii ka soo saaray baahiye wargeysyada Ingiriiska iyagoo soo xiganaya warbixinta cilmi ay ka qoreen saynisyahanadu iyagoo sheegay in qolfoofkan ahaa bashar ku noolaa 1 milyan oo sano ka hor magaalada Saaska Ingiriiska ku taala waxaana ay ahayd ahmiyadda laga dheehanayay daahfurkan saynis in Bill Downman uu asal ahaan daanyeer ahaa kadibna isku bedelay bashar iyadoo lagu sifeeyay inuu soo maray tadawur iyo isbedel dheer laakiin waxa soo dhamay waxay ku soo dhamaadeen been kadib markii saynisyahano kala daaha ka qaadeen in lafihii ay heleen saynisyahanadii hore ay kaliya ahaayeen lafa bashar oon biyees marin iyagoo faahfaahintooda ku daray in ilkaha loo geliyay ay ahaayeen ilka daanyeer gaboobay qaabka kale oo u samaysnaana wax laga bedelay sida awgeed waxay maamulka sayniska iyo artiska Ingiriisku shaaciyeen in sheekadii adduunka wareerisay ee ahayd bilaadanku asal ahaan daanyeer buu ka yimid ay ahayd been aan sal iyo raad lahayn Vikings waxay ku caan baxeen dadkii degi jiray koonfurta Scandinavian-ka ee loo yaqaanay Viking xidhashada koofiyadan geesaha leh inkastoo taariikhdooda lagu sheego inay koofiyadan xidhan jireen marka ay dagaalka ku jiraan haddana iyadoo ay sidaa tahay waxay taariikhyahanadu isweydiiyeen maxay ahayd sababtii ay koofiyadan geesaha leh u jeclaayeen iyadoo ay marka hore sawiradan geesaha leh u sameeyeen oo ay ka faafiyeen dadka ku xeesha dheer sawir gacmeedyadu sida sawirkii ugu horreeyay uu sawiray farshaxankii sawiryahan ee Swedish-ka ahaa ee lagu magacaabo jiray August Malmström sanadkii 1867 waxa uu sameeyay Cor Emil Dobler koofiyada geesa leh uu markaa ugu talagalay inay xirtaan shakhsiyaadka masraxyada ku loolamaya waxaana sidaa halka uga soo raacay dadkii Vikingska fikirka aan runta ahayn ee dadku ka aaminsanaayeen oo ahayd inay dadkaasi har iyo habeen xidhan jireen koofiyadan geesaha leh diraca dagaalka ee culus
sidaynu badanaa ku aragnay aflaanta waxaa ku jira filimo ka hadlaya taariikh dagaalyahano hore iyadoo filimka lagu matalayo inuu xidhan yahay dagaalyahanku dhar dagaaleed oo culus siday kuwa filimka matalayaan u dabaqaan taariikhda halyeeyga ay ka samaynayaan filimka haddana taa cagsigeeda sida taariikhda ku cad waxay dagaalyahanada fardafuulka ah iyo kuwa kaleba xidhan jireen dhar miisaankoodu ka yar yahay 30 kilograam oo keliya waxaanay sidaa u samayn jireen in xarakaadka badani u fududaado markay dagaalka ku jiraan taasina ay la micno tahay inay askartii hore ahaayeen qaar ka fudud kana dheereeya siday ka aaminsan yihiin dad badani dabaaldegyada Mareykanka ee 4 Yuulyo sanad walba 4 Julaay waxay dadka Mareykanka u dabaaldegaan maalinta ay xornimada ka qaateen xuquuqda Ingiriiska halka la wada og yahay taariikh ahaan in dokumentiga madax bannaanida la soo saaray maalintan si kasto ay ahaataba sida taariikhyahanada Mareykanku cadeeyeen madax bannaanida waxay ka qaateen 4 Julaay haddana intii u dhaxaysay 4 Julaay ilaa 2 bishii ka dambeysay ee August cidnama saxiixin wadankuna kuma wada dhawaaqin madax bannaanida si kasto ay ahaataba 2 August markii ahayd ay wufuudda Congress-ku saxiixeen bayaanka madax bannaanida haddana iyadoo ay sidaas tahay kumay bedelin maalintii madax bannaanida ay qaateen maalintii wadanka oo dhameys la qaatay daawadayaal muuqaalkan intaas ayuu ka eegyahay haddaad muuqaalkan ka heshay like saar haddaad kanaalkan ku cusub tahay nagu soo biro subscribe taabo si ay ku soo gaaraan muuqaalada dambe soo gelinaa